بسم الله الرحمن الرحيم. أن وحكا برانو ويديمها كلا what is a debt financing and what is an equity financing. waxaa jirta laba siyaabood oo shirkaduhu maalgelin ugu helaan mashaariicdooda. midda koowaad waa deyn oo loo yaqaano debt financing. midda labaadna waa deeq oo ah equity financing. haddaan ku hormarno in aan qeexno debt financing, waa marka shirkadu lacag ka soo amaahato bangi ama shacabka ama shirkad kale oo ay ballan qaado inay dib u bixiso lacagtii ay soo amaahatay iyo dulsaarkii. deyntana ay ku bixiso waqti cayiman. tusaale, qaabka shirkaduhu wax ku soo amaahan karaan waxaa ka mid ah inay soo saaraan boon. haddaba si aan xog dheeraada uga helno boonka, fadlan ka dhegayso lifaaqa hoose oo aan hadda koor ku soo sharaxnay. haddaan u soo gudubno qaabka labaad oo shirkadu maalgashi ugu samayn karto mashaariicdeeda, waa in ay adeegsato equity financing. waana marka qayb ka tirsan shirkadda laga gado dad cusub ama dadka hadda jooga ayada oo la adeegsanayo saami ama sheer. haddaba si aan xog dheeraada uga helno iyana sheeriska iyo qaabkay u shaqeeyaan, fadlan ka dhegayso lifaaqa hoose oo aan hadda koor ku soo sharaxnay. aan u soo gudubno faa'iidada iyo faa'iida darrada. haddaan ku bilowno faa'iida darrada ay leedahay marka la adeegsado equity financing oo nooga muuqata dhanka bidix, waxaad weynaysaa kontaroolka shirkadda maadaama dad cusub laga yaabo in ay ka mid noqdaan milkiilayaasha shirkadda. balse faa'iidada ayaa ah in aadan xilli cayiman ku qasbanayn in aad lacagtii bixiso, ilaan dadka ay shirkadda lacagtooda ku shaqaysanayso waa milkiilayaal. haddaan u weecanno dhanka debt financing oo nooga muuqata dhanka midig, faa'iida darrada ay leedahay ayaa ah in lagaa rabo lacagtii aad soo daynsatay in aad muddadii lagu heshiiyey aad ku bixisid. haddii kale waxaad weynaysaa kalsoonida lagu qabo shirkadaada, oo waxaa laga yaabaa in xitaa haddii ay dhacdo in mustaqbalka lacag lagu deymiyo lagu dul saaro lacag dheeraada oo interest ah maadaama kalsoonidaadii ay hoos u dhacday. balse faa'iidada ku jirta in la adeegsado debt financing ayaa ah in kontaroolka shirkadaada aadan weynaynin. haddaan koobno faa'iidada iyo faa'iida darrada aan ka soo hadalnay, waxaan dhihi karnaa equity financing iyo debt financing cagsi ayay isku yihiin, oo waxa mid faa'iido u ah ayaa midda kale faa'iido darro u ah. mahadsanidin, waa inoo mar kale haddii Rabbi idmo.